bismillaahi raxmaani raxiim walaalaha qaaligaa soo dhawaada kusoo dhawaada janalkeena isqurxinta ee qurux dumar. Haddaba maanta waxaynu ka hadlaynaa haaraha. Ugu horeyn waa maxay haaruhu? Haaruhu waa dhibco madmadow oo ku yaala wejiga oo ka duwan yihiin midabka wejiga, waxayna badanaa ku badan yihiin dhalinyarada rag iyo dumarba. Sidoo kale waxay aad ugu sii badan yihiin dumarka marka ay dhalayaan. haaraha badanaa waxaa loo sababeeyaa ama loo aaneeyaa qoraxda ama cadceedda, oo haaruhu waxay ku badan yihiin dhulka kulaylaha. Sidoo kale waxaa loo sababeeyaa gabowga, waana mid ka mid ah astaamaha kaasoo ka hormaro intaanu wejiga gaboobin. Sidoo kale haaraha waxaa lala xiriiriyaa dhaxalka ama in la kala dhaxlo. Sidoo kale haaruhu waxay ku badan yihiin dadka qaba sanboorka, dadka walwalka iyo warwarka badan. Sidoo kale dadka qaata daawooyinka uurka looga hortago way ku badan yihiin haaraha. Waxaasoo dhani waxa ay sabab u yihiin haaraha. Haddaba haddaynu soo ogaano maxaa sababa haaraha, waxaan u galaynaa hadda ama aynu ka hadlaynaa sidee lisaga ilaalin karaa haaraha. Qodobka koobaad, iska ilaali cadceedda ama qoraxda inaad ku shaqayso ama aad socoto marka ay kulushahay. Qodobka labaad, iska ilaali cadceedda si bareera ama si toos ah inay wejigaaga ugu dhigto ama ugu dhacdo. Qodobka saddexaad, iska ilaali warwarka badan, noqo qof dabiici ah. Haddii wax khayr la kugu dhacaan, Ilaahay u mahadnaq. Hadday wax xun kugu dhacaanna iska sabar. Qodobka afaraad, iska ilaali qaadashada daawooyinka ka hortago inay gabdhuhu uur qaadaan. Haddaba haddaanu soo aragnay sidee lisaga ilaalin karaa, ugu dambeyn sidee loo daaweyn karaa haaraha. haaraha waxay leeyihiin daawo aad u fudud, qof kastana uu heli karo. Qodobka koobaad, waxaad marisaa meelaha ay haaruhu kaaga yaaliin saliidda castor oil. Castor oil saliiddaas haaraha aad ayay ugu fiican tahay. Habeen iyo subax mari meelaha ay haaraha kaaga yaalaan saliidda lagu magacaabo castor oil. Qodobka labaad, fitamiin E-ga. fitamiin E-ga wuxuu aad ugu fiican yahay haaraha wejiga. fitamiin E-ga waa laba qayb, waa mid kaniini ah iyo saliid, waxaana fiican saliidda. Saliidda fitamiin E-ga ayaa fiican inaad mariso meelaha ay haaraha kaaga yaalaan. aad ayay ugu fiican tahay, wayna kaa baabi'inaysaa haaraha insha Allah. Labadaas qodob iyo labadaas saliid ayaa u fiican haaraha. walaalahiga qaaliga ka faa'iideysta. Midda hore waa castor oil oo ah saliidda castor oil la dhaho. waxaa marinaysaa meelaha ay haaraha kaaga yaaliin. laba waqti ayaa isticmaalaysaa, subaxdii iyo habeenkii markaad seexanayso. qodobka labaadna waa fitamiin E oil. saliiddaasna aad ay ugu fiican tahay maqaarka, gaar ahaan dadka wejigooda haaraha ay leeyihiin. ka faa'iideysi wacan walaalahayga qaaliga insha Allah. wassalaamu calaykum.